السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتهم والله soo dhawaada maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa mashiino baradhada iyo qudaartaba qaab ganacsiyeed aad uga faa'iideysan kartid tusaale ahaan baradhada iyadoo 5 kiilo ah 3 kiilo ah oo mashiin diirka ka soo qaaday oo fresh ah isla markaana loo geyn karo hoteelada jarjaranaya ama macmacaanlayaasha ama goobaha marka adeega laga iibsado baradho diyaar ah oo bacaysan oo nadiif ah diyaarinaya ayaan muuqaalkan idinkula wadaagayaa waxaan sidoo kale idinkula wadaagayaa mashiin marka baradhada nooca chivista ee caruurtu jeclaayeen iskuulada lagu gadi karay oo xalxaleefka ahayd isagana sameynaya oo la shiilayo isla markaana xawaasho lagu darayo oo shaqo abuur dad badan guryahooda uga sameyn karta inay baradhada diyaariyaan oo iskuulada ay geeyaan waxaan halkan sidoo kale aan idinkula wadaagi doonaa mashiinada qofkii haysta meel business sambuska oo kale sameeya kii basasha diirka uga qaadayay baradhada jarjarayay noocyo kala duwan oo aad u xalxaleefa yaryar dhuudhuuban jarjaran in badan oo kala duwan oo qudaarta iyo baradhada sameynaya ayaan sidoo kale muuqaalkan gudihiisa aan idinkula wadaagayaa haddaba walaalayaal intiin muuqaalka gudagelin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad in aad like saartid si uu dad badan u sii gaadho kanaalkan aad subscribe aad nagu soo biirtid lana wadaagtid qof fikradan ka faa'iideysan kara insha Allah fikradan walaalayaal waxaan kula wadaagayaa waa mashiino lagu shaqaysan karo oo hal mar qofku ganacsi iyo hal abuur uu ku sameyn karo macaamiilna iskale tusaale ahaan waxaad rabtaa in aad baradho diyaarsan oo markaa la soo diiray oo 5 kiilo loo baceeyay 2 kiilo 3 kiilo macmacaanlayaal ama hotel makhaayad cunto aad u diyaarisid aad u geysid sidoo kale suuqyada laga adeegto ee baradhada laga iibsan jiray dadku Soomaalidu dad baastada aad u isticmaalayeen ognahay baradhadana ku darsada baradhada iyo nus kiilo ah ama half kiilo ah oo la soo baceeyay oo nadiif ah ay suuqa ka soo gadan karaan isla markiina ay hore ay ka jarjaran karaan haddaba waa hal abuur u fududeynaysa dadkii inay maanta oo dhan baradhadii mindidii lagu dhilo oo shaqadii u fududeynaysa qiimo jaban aad kaga gadi kartid fikradaas markaas aad u hirgelisid waxaad u baahan tahay ilaa 4 mashiin baan isleeyahay sidoo kale mashiinadan shaqooyin badan oo kala gaar ah oo kala duwan ayay sii qabanayaan haddaba fikradan mashiinadaad u baahan tahay si bilaasha ayaan muuqaalkan gudihiisa aan idinkula wadaagayaa mashiinka koowaad waa kan aad sawirkiisa aragtaan waa mashiinka baradhada diirka ka qaada iyo basasha baradhada potato peeler ayaa lagu dhahaa af Ingiriiska mashiinkani wuxuu baradhada wareejinayaa oo xoog u wareejinayaa isla markiiba diiraya haragii oo dhanna ka saaraya baradhadii oo markaa diiran oo nadiif ah oo aan u baahnayn qof kale inuu gacan mariyo ayuu ka soo saaraya saad aragtaa baradhadaas marka waxa la sameyn karaa waa la dhaqayaa biyaha lagu nadiifinayaa ka bacdi iyadoo biyihii ku jirto oo nadiif ah ayaa waxa lagu bacaynayaa baco miisaan ama kafad ganacsiyeed oo scale loogu talagalay qudaarta ayaa la soo qaadaya waa lagu miisayaa 2 kiilo 3 kiilo 5 kiilo miisaanka oo scale-ka ah waa mashiinka labaad aad u baahan tahay marka aad miistid ka bacdi vacuum sealer bacda mashiin ku qallajinayo ku dhajinaya oo hawada ka saaraya si ay baradhadu fresh muddo dheer u ahaato ayaad u soo iibsanaysaa oo la gelinayo baradhada marka intaan makhaayadda cuntada la geyn ama suuqa la geyn isla markiiba sii bacaynaya oo xidhaya mashiinka vacuum sealing machine baa la dhahaa oo mashiinka baradhada iyo qudaarta baceeya si ay muddo dheer ay fresh u ahaadaan waa mashiinka saddexaad ee marka aad u baahan tahay mashiinka afraad waa mashiin isagu baradhadii noocyo badan oo kala duwan u jarjaraya hadday tahay baradhadii noocii chivista ay caruurtu jeclaayeen oo intaad jarjartid baradhada chivista keliyaba aad diyaarisid oo shiishid ka bacdi iskoolada
wadooyinka meelaha bulshada cagtu ku badan tahay hadhowto aad ku sii iibisid meelaha macaadada meelaha ardaydu soo maraan meelo badan oo markaa cagtu ay ku badan tahay ayaad baradhadii oo jibisa oo xawaashyo kala duwan lagu sameeyey oo dhanaan oo macaan ayaad ku iibin kartaa $0.3 hadba waxay noqoto waa baradhada jibista ayuu qaab u jarjaraya qaab kaloo ku xiga jibistii loo yaqaanay French fries ama duuduubnayd ee meheradaha macmacaanlayaashu beegarka raacin jireen ayaad ku soo saari kartaa oo ugu jarjari kartaa oo markaa meheradaha macmacaanlada ee beegarada gada digaaga gada kuwaas oo dhan ayaa loo iibgeyn karaa oo markaa aad ka iibgeynaysaa iyadana wadooyinkana waa lagu shiili karaa noocaasna wuu jarjaraa noocyada kale uu jarjari karo waxaa ka mid ah nooca sida kooban ee yacni square-ka ah ee saamuuska lagu guri jiray oo kale ama suugada iyo suqaarka iyo waxyaalaha la halmaala la raaciyo oo hodheeladu ay raaciyaan noocaasna waa u jarjari kartaa marka afartaa noocba intaad u diyaarisid oo mashiinku uu intaas oo 1500 kiilo saacadii diyaariyo 1000 kiilo 500 kiilo hadba capacity-ga aad markaa gadanaysid uu diyaariyo ayaad soo xidhan lahayd makhaayado hodheelo macmacaanlayaal iyo goobo suuqa dhexda arooti laga adeegto qudaartan oo diyaarsan oo fresh oo bac ku jirta aad macaamiil u samaysatid si ay dadku isla markiiba qudaarta diyaarsan ee package garaysan ugu darsadaan adeegooda dabcan adduunka waxaa ka jira qudaar iska diyaarsan basashii oo diyaarsan baradhadii oo diyaarsan kaaroodkii oo diyaarsan bad caalamyada supermarketka ka helaysa oo dadku iibsadaan isla markaana suqaarka cuntooyinka adeegyadooda ay ku samaystaan marka waa fikraddii oo suuqyadeena laga adeegto aad ku samayn kartid fikraddan haddaba walaalayaal qofkii raba inuu ka faa'iidaysto mashruucan mashiinada oo dhan iyo fikraddaba waan idin soo sheegay si bilaash ah qofkii gaar u samaysanaya waqtigu diyaar noqdo qofkii laakiin raba in loo soo qiimeeyo lala soo iibiyo xogtooda loo dhammaystiro lambarkan shaashada ku qoran ayuu nagala soo xidhiidhi karaa oo qayb consulting la talin ah oo ganacsi ahaan ah ayaan leenahay oo qofku khidmad iska bixiyo khidmaddaas markuu la baxo insha Allah loo soo qiimeynayo mashiinada oo Turki ah oo original ah ka bacdi wadankii meeshu ka joogaba loogu dirayo oo loo geynayo marka waxa xaqiiq ah in suuqyada laga adeegto qudaartii laga iibsado in hodheeladu ay qudaar isticmaalaan in ciyaalku ay snack ahaan chipsta iyo waxyaalaha u isticmaalaan oo dukaamada la geyn karo waxaan sidii fikradda baradhada wadamada adduunka oo dhan bay ka jirtaa noocyo badan ayaa baradhada loo sameeyaa hadday tahay baradhada chipsta hadday tahay potato wedge mid la dhaho iyaduna ay meelaha VIP-ga macmacaanlayaashu sameeyaan hadday tahay mashed potato la burburiyo inta la kariyo iyadoo burbursan kalluunka iyo lagu cuno mashed potato la dhaho baradhadu waa waxyaalaha loogu isticmaal badan yahay waa badeecad xaafadihii meheradihii ganacsiga intaba laga isticmaalo marka mashiinadan ayaad ku samaysan kartaa mashiinka kooda waxaan mashiinka baradhada dhilaya miisaanka lagu cabirayo mashiinka bacaynaya oo bacda ku xidhaya iyo mashiinkii ku jarjari lahaa afarta mashiin ayaad businesskan insha Allah aad u samayn kartaa hadda walaalayaal insha Allah qofkii raba inuu fikradda ka faa'iideysto lambarkan WhatsApp-ka ha nagala soo xiriiro oo la talin qofkii markaa u baahan si loola soo iibiyo fikraddanna la sii wadaag qof walaalka Soomaaliyeed oo markaa ka faa'iideysan kara xaqiiqatan mashiinno yar oo lagu shaqaysto oo guriga iyo goobaha kale suuqyada laga shaqeynayo oo shaqada fududeynaya waa fikradaha loogu baahi badan yahay hadda wadanka oo macaamiilna iskana socdo waxyaalo la iibsado oo joogto ah dadkii ka maarmin oo daruuri ah insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fikrado kale oo qiimo jaban tii greenhouse-ka tii digaaga iyo fikradii kale halkan aan ku reebaya ama muuqaalada dhexdooda walaalkii Sakriya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.